oo aabba ah waalid ah murabbi ah runtii in badanna u soo khidmeeyey diintan aanan weligiina waddanka ka bixin ilaahay cimrigiisa caafimaad ha inoogu dheereeyo agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta la taliyaha sheekh xasan iyo xuduurkiinan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in aqoon kororsiga loo qabanayo madax qaybeedyada iyo madax waaxidyada wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta in runtii laygu casuumo anigoona ka tirsanayn wasaaradda awqaafta sharaf bay ii tahay in wasaaradda awqaafta ay runtii ay garabkayga runtii ay istaagtay intii aan waday wacyigelinta 3 bilood ah iyo intii dalka aan ku wareegayay in wasaaraddu ay runtii wehel ii ahayd si fiican inay ii soo dhaweysay aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta runtii door weyn bay ku leedahay nolosha iyo horumarinta nabadgelyada waddanka wacyigelinta waddanka dhalinyaradan baaba'day ee runtii wax walbaba ay ka burbureen runtii xoog bay ku leedahay kuna yeelanaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo wacyigelintooda iyo dhisidda aqoontooda walaalayaal anigu ka mid maahi shaqaalaha wasaaradda awqaafta la inama magacaabin darajana la ima siinin shaqaale la igama yeelin laakiin waad garanaysaan beryahan dambe waxaa la doonayaa in dad baa jira social mediaha ah fadhiyo runtii aada isleedahay war dadkanu maxay yihiin cadaawadda ay qabaan xoog badana aada leedihiin oo runtii warar ku tiri kuteen ah meelaha ku fidinaya daa'iman dadka gelinaya tashwiish ku furaya been abuur sameyn intaasoo dhan markaan fiiriyey oo aan aada uga fikiray waxaan isleeyahay waa waxaa lala dagaalamayaa waa khayrka waxaa lala dagaalamayaa waa diinta waxaa lala dagaalamayaa waa horumarka waxaa lala dagaalamayaa waa nabadgelyada waxaa lala dagaalamayaa waaba noloshiaba lala dagaalamayaa baad leedahay social mediaha iyagaa shaqo abuur beena dadka u sameeya iyagaa dadka guur beena u sameeya iyagaa dadka dila iyagaa dadka nooleeya sidaabaad isleedahay wax walba xun bay sameeyaan waxaan halkan marka dhambaali yar intaan hawsha bilaabin uga dirayaa qof walba oo been abuur sameeya war been abuurka iyo wararkan beenta ah waa min almuhlikaat dadkay halaagaan waana kabaa'irtay ugu horeysaaba waxaa kaliya ka horeeya caaqul waalideynka iyo de waalidkii dhammaa ee xaqa labaad lahaa oo lagu caasiyo iyo ilaahi xaqa koowaad ah oo lagu caasiyo waxaa ku xiga shirkiga iyo caasiga waa qowlu zuurka iyo shahaadatu zuurka qowlu zuurka kan warka beenta ah fidinaya iyo shahaadatu zuurka oo ah fidinta iyo sheegaraynta iyo dhagaysiga iyo dhig raaricinta iyo ku farxidda lagu farxayo wararkan beenta ah war dembigan waa la wada galay ilaahay ka baqa wararka beenta ah ummadda 30 sano lagu burburinayay ka jooga wasaaradda awqaafta runtii iyo arrimaha diinta anigu shaqaalaheeda ka mid maahi laakiin runtii garabkaygay istaagtay waajibkeeda weeyaan in culimo walba oo timaada dalkan sheekh walboo yimaada nin walboo wacyigelin diini ah naf inuu dhiso u yimaada in ay garab istaagto cid walboo masjid dhisaysa inay garab istaagto cid walboo wax sadaqaysanaysa inay garab istaagto cid walboo ummaddan waqaf u samaynaysa inay garab istaagto maxaa wacay waa hawsheedii waxa inagoo dhan aynu haynaana waa hawl waxa inagoo dhan aynu haynaana waa hawshii waa wacyigelintii waa dhisidii masaajidada waa zakawaadkii waa awqaaftii waa waxyaabahaas oo dhan waa dugsiyadii waa madaaristii waa khayrkii oo dhan weeyaan wasaaradda runtii waxay wakiil ka tahay waa dhaxalkii xabiibka sala allahu calayhi wasalam adduunyo shuqulkuma laha adduunyo shuqulkuma laha
marka runtii wasaaraddan waxaan leenahay hawshiina qabsada xil weyn baa idin saaran halkan ciwaanka waa ahmiyadda zakada iyo awqaafta arrimaha yani islaamka ahmiyadda ay waqafka iyo zakada u leedahay islaamka